الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ميل كستو الدنيا ka joogtaan waa walaalkiina Idris Xasan Maxamed. Page-kayga daawanaysa waa Idris Qaso Page Official. Sidoo kale waxaad igala socon karaysaa kanaalkayga YouTube-ka ee Idris Qaso Channel Official. Muuqaalka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qiso 2 sano ka hor dhacday hooyo ka soo jeeda Afrika oo ilmaheega gacan u qaaday markii dambena uu boolis ugu yeedhay. muuqaaladan oo kale sidaan u soo badiyo fadlan igu dhiirigeli oo page-kayga like saar, sidoo kalena qaybta YouTube-ka subscribe saaro, gambaleelkana furo, waayo waxay ka caawin kartaa si aad ula socotid muuqaaladan soo geliyo. mahadsanid. qisadani waxay ku bilaabmaysaa sida tan: hooyadu marka ay ilmaheega dhasho waxay tahay mid ku soo tiriya tacabeesha ilaa weynaanshihiisa. ciyaalkuna marka ay dhaqan xun ama edeb darro ay sameeyaan, hooyadu waa mid u gacan qaata si ay inankeega uga ilaaliso inuu xumayaasha iyo dembiyada ku dhaco oo edbin ayay u tahay. hooyo ka soo jeeda qaaradda Afrika kuna nool waddanka Ingiriiska gaar ahaan UK ayaa maalimaha ka mid ah inankeega oo dhaqan xumo samaynaya ayay aragtay, kadibna gacan ayay u qaaday oo dharbaaxo ayay ku dhufatay. markii ay dharbaaxada ku dhufatay isla markiiba waxa uu wacay booliska, waxuuna ku dhahay hooyaday ayaa dishay oo gacan ay qaaday. muddo yar kadib booliskii ayaa guriga yimid iyaga oo xunsan. kii yaraana waxay ku dhaheen ina mari hooyada maadaama ay ku dishay, waxayna geeyeen kaam lagu xanaaneeyo ciyaalka. run ahaantii kii yaraa kaamkii wuu la qabsan waayey oo hooyadiisii daryeelaysay ee mar kastaba ka fikiraysay wuu arki waayey. wuxuuna go'aansaday ina uu ku noqdo hooyadii oona wax u dhaamaa jirin hooyadii. kadib wuu iskaga soo tegay kaamkii isaga ooyna cidna ogeyn oo wuu ka qariyey dadka kaamka ka mas-uulka ah oo si qarsoodiya ayuu uga soo baxay kaamkii. wuxuuna soo gaadhay gurigii hooyadii ay joogtay. muddo kadib waxaa raadiyey qoladii kaamka oo ka raadiyey qolal kaste oo kaamka ku dhex yaalla. markii dambe ay waayeen ayaa waxay wargeliyeen booliska ina uu kii yaraa maqan yahay, ayna u malaynayaan inuu hooyadii dib ugu noqday ama meelahaas uu tegey. muddo kadib raadis ayay bilaabeen booliskii si ay kii yaraa bal uga soo helaan meesha uu ku sugan yahay ama inuu ku noqday guriga hooyadii iyo inuu meelaha seexdo. muddo kadib markii ay raadiyeen waxa ay heleen kii yaraa inuu ku noqday guriga hooyadii. hooyana waa beer oo markuu inankeyga u soo noqday way faraxday oo gudaha ayay u soo gudbisay si uu nolosha caadiga ah ee qoyska uu la qaato. muddo yar kadib markii booliskii ay ogaadeen inuu guriga hooyadii uu joogo, ayaa booliskii oo raxana oo sida hadda aan wada arkayno ayaa waxay imaanayaan gurigii islaanta. dood dheer ayaana la gelinayaa oo waxaa la leeyahay adiga ayaa nugu diray oo la soo hadlay ka yar. hooyadana waxay ka ogeyd ma laha oo waxa ugu dambaysay maalintii inankeyga laga watay. wax maqala iyo wax muuqaalaba maalintaa ayaa ugu dambaysay. ka yari wuu diidan yahay oo waxa uu leeyahay idinma raacayo oo kuma noqonayo aan ka soo baxsaday oo mar rabo oo iguma socoto in aan meesha ku noolaado oo qoyskayga ayaa ii dhaama. laakiin meesha waxaa taalla qaynuuno oo markii hore ayuu saxeexay inuuna hooyadii rabin dibna uuna ugu noqon doonin. booliskiina waxa ay haystaan warqaddii caddaynta ahayd oo uu ka yari lahaa uma rabo hooyaday kumana noqonayo weligay lamana midoobayo, taasoo u saamaxaysa booliskani ina ay kaxeeyaan isaga oo ku qasban, waayo heshiiska uu galay ayaa ahayd inuu hooyadii ka dheeraado dibna uuna ugu soo noqon. booliskii buuq badan ayaa ka dhacay meesha oo kii yaraa guriga wuuba ka soo bixi la'yahay. sida aad wada arkaysaan ka yari wuu diidan yahay oo meeshii nolosha adkayd uu ku noolaa waxa la wanaagsanaatay hooygii uu ku soo barbaaray uuna ku soo koray ee hooyadii macaan ay joogtay oo waxa uu u waayey waxa uu dhigo
guriga hooyadii maadaama markii hore la geeyey kaam ciyaalka lagu xanaaneeyo. hadda booliskii way yaaban yihiin oo waxay leeyihiin kii yaraa ee go'aanka adag qaatay haddana maxaa iska beddelay, taasoo isleeyihiin markii uu yimid ayay malaha hooyadu maskaxda wax uga shubtay oo waxay ku dhahday hooye aniga ila joog. hase ahaatee wax ay ku dhahday ma laha ka yar ee wuu iska joogay sida caadiga ah guriga. meeshiina hadal iyo dood dheer ayaa ka socota oy boolisku leeyihiin kama tegayno ee waa inaannu kaxaynaa inan kan yar. kan yarina wuu diidan yahay oo waxau leeyahay marnaba lagama yaabo inaan hooyaday iyo faamilkayga aan ka dhex baxo. booliskiina waxa ay samaynayaan kolba boolis kale ayay u yeedhayaan oo way sasamayaan ka yar oo waxay ku leeyihiin waxaannu kugu celinaa meeshii aadka u wanaagsaneed oo hooyadaadan dilka badan leh iyo rafaadka aannu kaa kaxayno oo aan kugu celinno meeshii aadka u quruxda badnayd ee aadka u wanaagsanayd. laakiin wuxuu soo ogaaday hooyadii inayna wax u dhaamaa jirin iyo faamilkiisa. sida aan wada arkayno hadda waa lagu xuunsan yahay oo kii yaraa ayaa la isku dayayaa ina meesha laga soo kaxeeyo. bal aan fiirinno qaabka ay qisadani u dhacayso iyo kan yari qaabka uu diidan yahay. sida aan wada arkaynana muuqaalkan qaab yar oo qarsoodiya ayaa loo duubay, waayo booliskani waxba war kama hayaan ina muuqaal laga duubayo iyo in kale. kanna waa aabbaha dhalay wiilka oo isaguna leh waa kaas haddaad soo kaxaysanaysiin soo kaxaysta, annagu ma haysanno. kii yaraana kolba waa lagu noqonayaa oo waxa la leeyahay soo bax. ilaa uu sariirtii dhakada uga baxay uuna diiday marnaba inuu u soo dhowaado dadkan ama uu raaco ama la geeyo meeshii uu isagu ku noolaa markii hooyadii ay istagaaleen una go'aansaday inuu hooyadii ka dheeraado. kadib gabadh boolisada ayaa korka koraysa si ay u soo kaxayso ugana soo dhaadhiciso meeshan. laakiin sida aan wada arkayno wuu ka sii durkayaa mar kastaba wuuna diidayaa ina uu soo dhowaado, iyadoo kuleh istaji waxaan ku geynaynaa meeshii aad ka timid ee inakeen. wuuna diidan yahay oo waxuu leeyahay marnaba lagama yaabo inaan hooyaday iyo qoyskayga ka dhex baxo. taasina waa sababta uu isagu lahaa, waayo hadduuna hooyadii dacweyn lahayn maanta ciqaabta muuna mareen waxaanuu boolisna kuma soo xoomeen. sharciyada yurubna waa mid aad u adag oo qofku hadduu yidhaahdo qalitaan ayaan u baahanahay oo lagu yidhaahdo bartan saxeex, waayo saxeexa ayaa wax kastaba ka weyn oo wax kasta oo ku dhaca saxiixiisa unba beritole la tusayaa. kii yaraana qasab ayaa la rabaa in lagaga soo daadajiyo sariirta loona kaxeeyo meeshii uu ka soo baxsaday ee kaamka ahayd. hadda sidaan wada arkayno waa la jiijiidayaa oo waxaa la leeyahay soo deg. hase ahaatee ma soo degayo. booliskana lagama yaabo ina ay ka tegaan, taasoo sababaysa saxeexii uu galay uu yidhi hooyaday marnaba ma rabo. hadda sida aan wada arkayno waa lagu buuqsan yahay oo waxaa la rabaa ina qasab lagu kaxeeyo kan yar. oo booliskii waxa ay rabaan si xooga inta ay ku kaxeeyaan in ay ku geeyaan meeshii loogu talagalay. oo sida aan wada arkayno hadda waxaa lagaga soo dejiyey sariirtii qasab oo oohin ayaa ka socota oo faamilkiisa ayuu rabaa ee ma rabo meeshan hadda lagu wado. sidaan wada arkaynana aad ayuu u ooyayaa oo waxa uu leeyahay ma rabo inaan meeshaa ku noqdo ee waxaan rabaa inaan faamilkayga la midoobo. askartuna waxaas kama aqbalayaan, waayo saxeexii hore ayay raacayaan iyo oggolaanshihii markii hore ka yar oggolaaday. isaga oo ooyaya ayaana laga kaxeeyey meesha loona kaxeeyey meeshii lagu talagalay ama kaamkii ciyaalka lagu xanaanaynayay
oohintan ka socotaana waa mid uu dareemayo keli noolaanshaha ka jira meesha lagu wado uuna ka helayn hooyo aabbo iyo walaal uu la ciyaaro lana kaftamo laakiin way ka hoos baxday markii uu saxiixayay inuuna waalidkiisa rabin oo hadda kaabadda qasab ayaa lagaga daadejiyey si loogu celiyo kaamkii uu hadda ka soo baxsaday sida aan wada arkaynina booliskii kii yaraa way wadeen oo waxay u wadeen kaamkii loogu talagalay in lagu xanaaneeyo ciyaalada dhaha hooyaday ma rabno ee naga wata meeshaasna marnaba lagama yaabo in uu ka helo naxariistii hooyanimo haddana waxa lagu waday qaabka xoogga oo sidaan u wada arkayno meeqa Soomaaliya ayaa jirta iyo hooyooyin badan oo qurbaha ku rafaadsan oo tan oo kale ay ku dhacday taasoo u sababa ciyaalka marka ay dhaqan xumo bilaabaan inay hooyadu idbiso kadibna ay boolis ugu yeedhaan kadibna sidaa looga wato gaaladuna waxa ay eegaan inta badan ilmaha yar ayay rumaystaan ee mar rumaystaan hooyada oo hadday dhahdo dhaqan xumo ayuu sameeyey mar rumaystaan ee ilmaha yar ayay rumaystaan muuqaalkana intaa ayaanu ku soo afmeeri doonaa qisadani haddii dareenkaaga taabatay ama aad aragtay hooyooyin badan oo ilmahooga laga qaatay falan sheer dheh oo asxaabtooda la wadaag si looga digtoonaado ka qaadanshaha ilmaha hooyooyinka laga qaato waad mahadsan tahay